واي وحوي ما يقعنا وما بيوسنا واشع الله وحوي إنه ما يقعنا لقوا بيوس مربنا أننا وانا بيوس على الصومالية ما نركبتها ويل كان الدبات وقبا أننا الدبات قبنا وحوي ما يقعنا لقوا بيوسنا نركها الدولة في عنا داتي أننا هرا أننا نفتان هيسا أننا بيوس حبانها نقطعن بيوس حبان صومالينا نقطعن المهنا ما نقول برك حيسرية المها يقعنا داي نوداي هذا دولة في عنا داتي المها يقعنا داي أو وينات قوم حوايا محكمة عنو إذا لقالنا بحاجة المها يجيب أننا قارتنا نقول مساكين وأنو ربنا المها يقعنا ما بيوس وانا شعلها آليان المهنية المهنا اسكم بدمها أننا المها يقعد حرمينا نقل لحظة سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa dawladda Mareykanka waxaan salaamayaa community Soomaalida waxaan salaamayaa wax kasta oo xuquuqda bini'aadamka u dooda dhibaato ayaan ka soo cararnay dawladda Mareykanka waxaan u siinayaa Soomaaliya halkan waxa keenay dadkeedu dhul bay lahayd waa burbur iyo baaba iyo dhibaato markaan iswareysanana dhibaataan qabnaa wili oo dhibaatadii kama aanu bixin caruuraha jeelasha ka buuxa wax ka daba tagay iyo wax ka dooda kol dadka Soomaalida kuma jirto dawladda Mareykanka ma aqaan waxay ka qabato iyo wixii maartay ay samayso anu waxba kama ogi mana arkinin wax caruur oo hooyooyin booyayaan arkaa baala booyayaan arkaa caruurteedu way ka maran tahay suuqa magaalada Minneapolis iyo magaalooyin kale oo baran oo aad u sii badan jeelasha ayay ku jiraan waa ku waashaan dhibaatay qabaan bismillaahir rahmaanir rahiim anagu waxaanu nahay dadweynaha magaalada Minneapolis aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa sida looga qaatay reerka ilmahooda waxa waaye xaq darro ayaa meeshan ka socota ilmo aan lagu arag wax ma aragtay ii sheeg dhaawaca ilmo yar oo yiri waad hooyadii ay dishay in ilmihiyo dhan lagu qaato maaha in la baaray ahayd waxaana ay ku tusaysaa sida aan ma aragtay waalidku meeshan ay wax xuquuq u lahayn ilmaha ayaa meesha u nimid inaan ku mudaharaad ayaan u taaganahay kaligoodna kuma dhicin qof walba ayay ku dhacaysaa waxaana waay hooyooyin baa anaga nahay qof walba way xanuujinaysaa qofna ilmihiisa uma dilo waa dilaya ilmuha waa la canaantaa waa la xanuujiyaa anaga wax ka dalan baa lagu sameeyay jiray waxaan u arki jiray mar walba hooyada iyo aabaha inay ma aragtay ii sheegeen muxuu ahaa wax noo sheeg la jecel yihiin waana ku waantownay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان جوغنا هنبين كاونتي جوفنال كورت وأن شلي يوم أنت بأن جوغنا أنا أقول جوغنا وكفن نوا لهنا أو نيك dadka magaalada ugu fiican kamid ah bulaale yaxaaskiisa oo ilmihii ay jaal bartay shirka ka qaadateen waxaan shalay joognay maxkamadii alxamdulillaah rabbil caalamiin markii laba kamid ah isla markii ayaa loo soo celiyay saddex kamid ah ayaa wali waxa haysta mataqaana jaal bartay serviceska maanta maxkamad ayuu leeyahay oo hearing ah oo contested hearing ah oo labada dhinac ah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in qoyskan sida ugu dhaqsaha badan ilmahooda dib loogu soo cesho arrintan waxa weey arrin ku dhici karta qoys kasta oo Soomaaliyeed oo Mareykan jooga waxay noo noqon kartaa tusaale fiican inaan isgarab istaagno marka dhibaato dhacdo waxaan kaloo bulshada Soomaaliyeed walaalahan la wadaagaya waxay tahay muhiimadda ay leedahay waxa weeye inaan caruurta aan ka warqabno inaan mataqaana Ilaahay tala saarno inaan wadankan aan ka mid noqono haddana aan ogaano in mataqaana ilmahana la leeyahay ilmaha wadankan waa lagu leeyahay marka laakiin qoyskan bulaale qoys inaad u fiican anigu aqaana personally xafiiska meesha aan ku leeyahay 24 ka iyo coffee shop ku leeyahay وأنا أدو وناكسن الميسا يواقعنا حاسكيس إلى خير أو سيلا وبركيو وحيلا كرجينا الميسا أوصل نقضان ما إلى كرجينا دي لاي مقدش تعمل سعادة وما سنتها هاي وأنا وصديق غرفان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عبد الناصر هذا متربى لي هذا وأنا تجينا من الصورة وأنا حاسمي وأنا عندي كاب dhibaatada waayeelka haysato oo ilmahooda ka haysato waxa kamid ah mid aan maanta halkaan u nimid oo ah caruurtaadii oo ku ooyeysa oo ku cayrsanaysa oo aabaha iyo hooyada ma rabaale oo laga xuduma siibayo oo ayagii laynayaan booliska laynayaan oo indhaha ka sumeynayaan buufinayaan waxaan u sheegaynaa caalamka iyo Ameerikaba in dhibaatada jidha oo caynkaas xaaslida iyo caruurtooda la soo galeysiyo oo la ka qabto
waxaanu aragnaa abayuus inay tahay waxaanu aragnaa gumaysi inay tahay waxaanu aragnaa midab koor inay tahay hana la celiyo dalkayga hana lagu celiyo haddii aan carruurtayda naloo ogolaanayn inaanu rabaysano oo edebsano oo gurigayga ku haysano oo intana la ka qaata la laynayo ayagoo raashinkoodii diiday oo soo baxsanaya oo istaal aan geysanay dilkii ay dileen oo nala ka soo istaalkii laga soo qaatay oo maxkamaddii ay dhammaanahayn maalin walba maxkamad imow lagu leeyahay adoon tabaru hayn goormaa shaqaysataa goormaad shaqo aadaa goormaad nasataa goorma dhibaatadaasaa waayeelkii iyo ummaddii soomaaliyeed oo dhan haysata meelay joogtaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. It's a very, very unfortunate and sad day. We're here because a lovely woman got her children taken away, all 7 kids. I think the system is a little bit broken simply because I know the cultural differences, especially me being a student here, a kid here, and then having family that came from Somalia. I think there's a large cultural difference. I myself am a mother of 5, and I think before people jump the gun in saying child abuse, I think there should be more education in regards to the system itself. I think majority of the family members here don't really understand the limits to child discipline, first being said. And then the other thing is it's a little corrupt because today we're here about he said, she said. There's a 16-year-old that claims that her mother abuses her or her older brother abuses her simply because she refuses to stay home. She keeps running away off and on. And it's difficult to actually believe that today in the state of Minnesota that a woman can have all 7 of her children taken away simply because her 16-year-old claims that there's child abuse in the family. waxaan halka u joognaa maanta inaan support gareyno ama aan taageerno oo community qoyska Bulaale Ali iyo Dahabo oo aanu aaminsanahay in si gardarra loo qaatay 6dooda carruurta ahayd oo maalintu waa maalinta maxkamadda labaad weeye waana shacabkii Soomaaliyeed Mareykanka ku nool Minneapolis xoogiisii ugu badnaa weligeed baa shalay maanta yimid walamadii waa timid wadaadii baa timid ardadii baa timid hooyooyinkii baa yimid dumar baa ugu badnaadeen keesku wuxuu ku saabsan yahay carruurtaas oo hooyadooda lagu eedeeyay inay faraxumayso oo ay garaacdo annaguna aan qabno inaysan jirin eedana waxay ka keeneen gabar yar oo ay dhaleen oo reerku gabadha ugu weyna oo 17 jira oo reerku xoogaa maara u lahaa oo waxbarashada lagu khasbi jiray baa marmarsiyo saan qabno u sheegtay dawladda in hooyadeed ay garaacdo ay faraxumayso oo ay disho taasna annagu waxaan halka u nimid inaysan waxba ka jirin dawladda ka dhaadhicino dadka u shaqeeya midabka cadaanka leh inaysan wax Soomaaliya haysan fahamsanayna dhaqanka Soomaaliyeed iyo diintooda iyo qaabka ay u dhaqmaan ilmahooda marka arinta halkaas ay maraysaa ilmihii 3 waa la soo ceshay 3na waxaan nala ku ogolaaday oo hadii waalidka loo diiday in loo dhiibo waalidka qaraabadiisa oo Soomaali ah oo muslim ah in loo dhiibo taasna waa dhacday waa lagu ballamay maanta maxkamadda ah waxa la cadeynayaa gabadha dambigan inay qabto iyo inaysan qabin waxaana doodaya labada qareen oo kala matalaya dawladda iyo qoyska waxaan rajaynaynaa dacwada inay soconayso muddo laakiin waxaan kala rabnaa guud ahaan waxaa jira dhib baa jira annagu ma fahamsan community-ganu ma fahamsana qaabka waddankan u shaqeeyo ayaguna ma yaqaanin dhaqanka waxaan leenahay waxaanu rabnaa inaan community-ga isu keenno sabtidan ma ahana sabtida ku xigta galabnimada 3 galabnimo meesha Brian Coyle ma sabtidan waa sabtida wiiga dambe meesha Brian Coyle yaado inaanu community-ga iyo aqoonyahankiisa isku keenno odayaashiisa iyo hooyooyinkiisa ka wada hadalno waxyaalaha jira wixii dokumenti ka sameeyno ka bacdina shir labaad dawladda ugu yeerano si ay dawladdu u bedesho waxyaalaha khaldan aan ka tirsanayno sababtoo haddaan aan wax bedelin meeshii baan joogaynaa ilmaheenina xabsiyada la geenaya sidaa daraadeed waxaan u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed oo u hiiliyay qoyskaas oo aad iyo aad uga bedelay maxkamadda sida u dhicinayd waana mahadsantihiin